يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan la wadaagaynaa farxadda barashada bisha Ramadaan bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda jaamacadda Balaasma, haddii ay ahaan lahaayeen xubnaha maamulka, barayaasha sharafta leh, iyo ardayda jaamacadda hadda wax ka barata, iyo kuwa horey uga qalinjabiyey ee qalinjabiyeyaasha jaamacadda. waxaanu leenahay dhammaantood Ramadaan Kariim, Ramadaan Kariim. waxaa noo curtay bishii barakaysnayd, bishii raxmadda, bishii dambi dhaafka. waxaana ilaahay weydiisanaynaa inuu nagu daro addoommadiisa la aqbalo acmaashooda wanaagsan, lagana xoreeyo cadaabta. sidoo kale halkan waxaan la wadaagaynaa bulshada Soomaaliyeed xanuunka ay dareemayaan bishan Ramadaan oo ku soo beegantay xilli caalamkoo dhan uu hareeyey aafada cudurka coronavirus COVID-19, gaar ahaan bulshadeenna oo ah bulsho aad u taag daran, duruufo dhaqaale iyo nololeedna ay hareeyeen. haddana markii ay la kulmeen cudurkan iyo xilligan dhibaato badan dareemaya, waxaan ilaahay ka baryaynaa bisha Ramadaan barakadeeda inuu nooga qaado cudurkan, inuu u khafiifiyo kuwa ku dhacay, inuu u dhab yareeyo bulshadeenna. inta u dhimatana ilaahay waxaan ka baryaynaa jannadiisa inuu ku abaalmariyo. anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, waxaan sidoo kale halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan barayaasha jaamacadda, ardayda jaamacadda, xubnaha maamulka kala duwan ee jaamacadda, kuwaasoo u dhabar adeegay kuna guulaystay hirgelinta habka waxbarashada online-ka ah. jaamacadda horey waxbarashadeedu waxay adeegyada waxbarasho ku baxayay hab foolka fool ah, laakiin markii uu soo baxay go'aankii xayiraadda goobaha waxbarashada 18 bishii Maarch, jaamacadda Balaasma waxay noqotay jaamacadda ugu horeysay ee hirgelisay habka waxbarashada online-ka ah. isla maalinimadii 18 iyo 19 suurtagal u noqotay inay siiso tababaro ardayda iyo barayaasha jaamacadda si ay u gutaan si aanbaqaadida adeega waxbarashada online-ka ah. taas waxaa suuragal ka dhigay jaamacadda horey waxay u isticmaalaysay habka maamulka online-ka ah, maadaama xarumo kala duwan oo dalka jaamacadda ay degan tahay iyo dibadda waxay isticmaalaysay habka maamulka online-ka ah. taa ayaa fududaysay, suurtagalna ka dhigtay in ardayda iyo barayaasha noqdaan dadkii ugu horreeyay ee isticmaala habkan. maanta oo laga jooga 40 cisho, jaamacadda waxaa u soo dhammaaday daraasaadkii iyo qayb ka mid ah imtixaanaadkii online-ka ah. alxamdulilah, ilaahan taa uga mahadcelinayna. waxaan halkan hambalyo iyo duco u marinayaa dhammaan xubnaha qalinjabiyeyaasha jaamacadda, gaar ahaan kuwa taagan safka hore halka lagu dabiibayo, lagu daryeelayo bukaanada qaba cudurka coronavirus-ka. waxaana leeyahay ilaahay idinka abaalmariya nafhuridda aad samayseen. runtii waa wixii aad ballan qaadeen markii aad waxbarashada dhammayseen ood qalin jabinayseen. jaamacaddu waxay soo saartay 3500 oo ah adeegayaal caafimaad, xirfadlayaal caafimaad, isugu jira dhakhaatiir, shaybaaristayaal, kalkaaliyayaal, public health officers iyo clinical officers intaba. in badan maanta waxay taagan yihiin goobaha caafimaadka, isbitaalaadka. waxaan leeyahay adkeeya ballantii aad shala gasheen, bulshadiina maanta ay idin baahan tahay. waad ogtihiin jaamacaddu si shuruud la'aan ayay bulshada ugu gurmanaysa marka ay yimaadeen daadadka, fatahaadda iyo dhibaatooyinka adag. gaar ahaan goobaha ugu adag ayay tegaysay. maxaa yeelay jaamacadda halkudhigeedu waxay ahayd guul iyo isku tashi. marna maynan dhicin inay hay'ad ama cid kala weydiisato in la caawiyo si ay bulshada u caawiso. waxaan leeyahay ilaahay dartii ummadda aad ka dhalateen garab istaaga insha allah. xilli adag ayay ku jirtaa oo idin baahan tahay. asalaamu calaykum waraxmat. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود